بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا والسلام يا دمان مدلا الصوماليات ميل الباعي جوكتو أمد الصوماليات عندنا إن الله الله خاصة كودقان دلك كينيا مقالة مدحديسة نيروبي هي حافظة إسلي طبعا إسلي waxyaabaha aan ka maqlaayo waa waxyaabo lid ku ah dabcan hab u socodka iyo dabcan sida xorriyadda ah ee dadka bulshada ay ugu noolaan karaan deegaanada ay ka degan yihiin dalalka ay joogaan markaasi iyada oo aysan ahayn waxa macnaha ay ka cabanayaan xukuumadda ay yihiin laakiin dad shufta ah ama tuuga ah dabcan dadkani ma aha dad hadda la soo qaban waayay laakiin waa dad fursad la siinayo oo la doonayo in suuqa la soo geliyo oo la siiyo waqtigooda iyada oo jaanis walbaana loogaga faa'iideysanayo dhanka haddii la yiraahdo Soomaalida oo dowladda Kenya aysan sidaa hadda tan isugu howleynin ammaankooda maadaama aad ogtihiin Soomaaliya iyo Kenya xaaladahooda iyo dadka markaasi ka shaqaysan jiray jaadka Soomaaliya loo dhoofiyo waayo haddii ay dadkii la lahaa miirowga la lahaa haddii ay dabcan dowladdiina ay ka waayeen in ay u fududeyso shaqooyinkoodii iyo ganacsigoodii ay micnaha kala xiriiri lahaayeen Soomaaliya si uu Soomaaliya u tago qaadkoodii dowladdii Kenya ay ku guuleysan weyday dabcan Soomaali haddii jaad laga gadi jiray oo lacag baa laga heli jiray oo waxaa la aaminsan yahay in ay Soomaalidu jaadka lacagtii ay dabcan ku gadan jirtay oo intaasoo dakhli ah ka soo xaroon jiray in haddana dabcan uu sidii un yahay oo markaasi dadkii lacagihii ay jabka ku haystaan oo ay markaasi lagu xumeynayo in dadkoodiina la qabsado ama siiba dumarkii xaggooda laga soo maro iyadoo horey u dhacday wiil ganacsada ah oo Soomaaliyeed oo ka yimid dalkaasi America si markaasi arxan darro ahna loogu dilay gudaha dalka Kenya tii ayadoo taagan haddana toos loo fuliyey falal dabcan haddii ay ahaan lahayd rag markaasi ugu talagalay in ay si bareer ah uga dhex kalluumaystaan xaafadaha waaweyn ee bulshadu isugu timaado oo islii ay ka kooban tahay iyada oo weliba gawaarida ay wataana sida muuqata iyo taargadooda ay caadi u muuqato waa un daqiiqado waxa dhacaya ee markaasi la doonayo in wax walba lagu fuliyo siiba dumarka oo loo arkay in ay micnaha markaasi wax lagu heli karo haddii la qabsado oo la jir dilo oo qaarkoodna micnaha markaasi naftooda la dhaafiyo sidaa waxaa micnaha markaasi ay u muuqanaysaa in la yiri dadka Soomaaliyeed waxa ay ka jilcan yihiin dhanka dumarka xitaa haddii reerka familka ay gabadha aad ka qabsataan wax aysan haysanin dabcan Soomaali kale ayaa u gurbanayso dal dibad ayaa account looga furayaa si looga dhiibo gabadhoosna loo soo fardaamiyo kamana marna meeshaasi dad la yiraahdo Soomaali oo sidaad ogtihiin dalka Koonfur Afrika waxa dadka gubi jiray ee dili jiray ee baabi'in jiray ee madowgan soo kicin jiray oo adeegsan jiray isla Soomaali bay ahaayeen Soomaalina shidada iyada ayaa jecel goob walba ay ku nooshahay in ay wax un shida ay ka jiraan iyada doonta
dal walbo ay adduunka ka joogaan iyada ayaa doontaa oo raasata haddii ay weydina samaysaba falki marka Soomaalidu waxa waaye kuwaasi la soo adeegsanayo oo informationka dumarka iyo qaababkooda iyo xilliyada la helay iyo waxaas oo dhanba bixiyana waa rag ka agdhow dumarka markaas iyaguna ay aaminsan yihiin amaba dabcan aysan ka filaynin xaqiiqadu waxay tahay ma muuqato in dowladda Kenya maanta ay Soomaali dadkeeda u istaagayso oo ay ka celinayso cadow wadogtiin Soomaaliya imiso report ay micnaha Kenya ka gudbisay oo Kenya imisa micnaha markaasi iyadu ujeedooyinkeedii ay kala heyd Soomaaliya ay ugu hungowday calaashan xisaabtanka ee la xisaabtamay ee dowladdu la xisaabtantay wax walba Kenya waa dabcan wax markaasi ay iyadu haddii aysan sameynina ku faraxsan tahay dadkii waxaa la lahaa waad ogtihiin Kenya qaxootiyada ku jiray xeryaha in la isku dayo xataa in ay micnaha la kala diro oo loo laabo iyada oo Kenya markaasi luminaysa qarash aad iyo aad dakhli ugu soo gali jiray dhankaasi sida darteed dumarka Kenya ku nool mas'uuliyadoodu waxay dusha ka saaran tahay dhalinyarada wanaagsan ee ku nool dalka Kenya dadka waxa la gaadayo oo dumarka micnaha la qabsanayo la qafaaranayo iyo ama ninka ragga ah waxay tahay waa kali socodka iyada oo xaaladda jirta la og yahay ayaa dan Soomaali indha adag tahay waxa waaye wax walba waxay jeceshahay in iyadu ay xaqiiqsato isla iyadoo dana hadhow si xun loo galayo oo ooynayda oo micnaha ku beer qaadaysa haddana adib u arkaysid marka waxaan leeyahay Soomaali inay gacmaha isqabsato oo haddii hataa ay magaalada soo aadayaan inaysan hal iyo laba ku soo bixin oo ay ku soo baxaan iyaga oo iskugu jira rag iyo dumarba oo mid walba ka mid ahna mid kale tahay uu ka waardiyeynaya cadow sida ay wax loogu gudbi karaa markii aad golo cadow ku nooshahay laakiin haddii aad tiraahdo kaliya u soconaya waxa waaye waxaa yaraanaysa gabdhaha ku nool waxaa yaraan doona gabdhaha ku nool Nairobi oo mid sida loo siibanayo oo meelaha loogu tuurayo meydkeeda iyada oo farxumaysan iyada oo jir dilan iyada oo dhibaataysan waad arki doontaan Soomaaliya ka dhiidhiya insha Allah taala wax walba oo markaasi soo baxana dabcan adinka ayaa u joogo insha Allah taala waxaan idin rajeynayaa khayr badan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa inuu Ilaahay dhowro sharaftooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba kuwa la haysan Ilaahay soo daayo dhagartoodan Ilaahay ha ka badbaadiyo gabdhaheena Soomaaliyeed insha Allah taala nabadii ayaan idin leeyahay